Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay si aad iskaga diiwaangelin karto Somalism Academy Courses, koorsooyinka Somalism. Waana wax aad iyo aad u fudud. Ka hore browserkaaga waxaad ku qoran kartaa somalism.org oo qaabkaas u qoraysid. Markaad kadibna waxaad soo galaysaa website-ka Sustainable Online Academy. koorsooyinkiina waa kana aad rabtid koorsadan tusaale ahaan maamulka ganacsiga caalamiga aad doonaysaa inaad iska diiwaangeliso kaleeta koorso walba waxaad arkaysaa magaca koorsada kadibna koorsada noocay tahay dibloma miya mise koorso caadi waaye halkan waxaad ku arkaysaa sharaxaad halkan oo kaleeto waxaad ku arkaysaa koorsada waqtiga ay soconayso iyo nooca koorsada oo kaleeta waqtiga koorsadan ay soconayso kaleeto waa 35 maalmood category nooca waa ganacsiga iyo maamulka oo kaleeta marka dhinacan hoose aad soo baxdo kaleeto waxaad ku baran doontaa koorsooyinka dhammaan waxyaabaha aad ku baran doonto koorsooyinka aad arkaysaa halkan waxaad arkaysaa qiimaha price-ka koorsadan ay joogto halkan waxaad arkaysaa koorsada waxyaabaha ay ka kooban tahay sida shahaadada inay leedahay iyo in kale halkan dhinaca kale waxaad arkaysaa muuqaalka koorsada video qaabkaas kaga diiwaangelin waxaan ku dhufanaynaa hadda bilow ama waxaan kaloo ku dhufan karnaa buy now markaan intaas aragno waxaa noo soo baxaya purchase kadib waxaa noo soo baxaya order summary-ga koorsadan maxay ahayd waxaad gelinaysaa tusaalahaan ali123@gmail.com ali123@gmail.com halkan passwordka haddaad rabtid isla emailkaad gelin kartaa isla emailkaas koraa haddana passwordkaad gashan kartaa haddii kale waxaad ku qori kartaa Muxamed iskaga qori kartaa haddaad rabtid oo kaleeta passwordkaaga oo kaleeta ama emailkaaga iskaga sawirtaan very simple ay wata haddana waad ku celinaysaa mar walbana xasuusnow labadan isku si aad wax gelinaysaa inta wixii gelisid haddana inta waa inaad gelisid midaan oo kaleeta haddana waa inaad inta haddana aad ku celisid waa inaad mar walba confirm haddana aad ku samaysaa halkan qaybta hoose waxaad gelinaysaa magacaaga oo kaleeta tusaale ahaan Maxamed ama Soomaalida ahaan aad u qori kartaa ama English ahaan u qori kartaa labadaba Maxamed tusaale ahaan Ali adresska magaaladaad ku qori kartaa haddaad haysatid haddaadan haysanin waajib waa ka gudbi kartaa magaalada aad degan tahay oo kaleeta tusaale ahaan haddii Hargeysa aad degan tahay Hargeysaad ku qoraysaa Hargeysaad ku qoraysaa haddaad Muqdisho degan tahay waxaad ku qoraysaa Muqdisho haddaad Kismaayo degan tahay waxaad ku qoraysaa Kismaayo haddaad degan tahay Awdheegla aad ku qoraysaa haddaad Nairobi degan tahay Nairobi aad ku qoraysaa haddaad Oslo degan tahay Norway degan tahay Norway ku qoraysaa meel walba London everywhere marka caasimadda marka aad degan tahay tusaale ahaan aan ku qoro anigoo kaleeto Oslo kadibna state wax ku qoraya Akershus kadibna zip code wuxuu noqonayaa san ever 47 haddii aad Soomaali aad joogtin ha iloobin inaad ku qorto kaleeto ever 252 laakiin tusaale ahaan waxaa joogta caasimadda dalkii Soomaaliyeed Muqdisho gobolka waxaa waaye Banaadir halkan waxaa ka dooranaysaa waddanka markaas waddankii marka aad ku nooshahay aad degan tahay halkaasna waxaa ku qoraysaa telephone numberkaaga oo kaleeta tusaale ahaan telephone numberkaad ku qortay kadibna waxaad dooranaysaa qaabka aad ku bixin karto lacagta oo kaleeta maxaa debit card maarata inaad ku bixiso ama credit card ma korata inaad ku bixiso ama haddii kale waxaad ku bixin kartaa mobile payment-iga marka xasuusnoo mar walbaba Norway haddaad joogto oo kaleeta mobile aad ku bixin kartaa Soomaaliya iyo dhammaan dhinacyada EVC plus sahal dhammaan lambarkaasaad aad ku diraysaa tusaale ahaan hadda meeshaan iska diiwaangeliyo kaleeto waa Soomaaliya lambarkaas Soomaaliya EVC plus iyo waxa dhan isaad iyo sahal kulli waad isticmaali kartaa lacagta halkaas soo diri kartaa haddii aad Kenya joogto kaleeto Mombasa ku fudud Mombasa isticmaali kartaa haddaad Ethiopia joogtana waxa ku fudud Hello Cash aad isticmaali kartaa oo lambarkiisna halkaas haddii Uganda aad joogtid lambarkaas aad ku soo diri kartaa marka hadba waddanka aad joogtid oo ku fudud markaas isticmaal kadibna waxaad ku dhufanaysaa koorsada inay markaad go'aansatay qaabkii wixii dhan markaad registraysid waxa qaabka mobile payment aad ku dhufanay aad dooratay kadibna buy adaysaa markaad buy tiraadid ku shaqeynaya kadibna waxaad bilaaban doontaa halkaana dashboard waxaad arkaysaa wax walbaba okay marka
kadib mataqaanaa markay halkaas ay marayso markii lagu aqbalo kadib oo lacagtii mobile paymentkii lagu aqbalo kadib waxaa dhacayso my courses aad ku dhufanaysaa my courses markaa ku dhufatid mataqaana maanta waxaad arkaysaa koorsada maamulka ganacsiga caalamiga inay furan tahay dareemaysaa kadibna halkaanaad klik siinaysaa aad ku dhufanaysaa si aad u aragto maxaa la yidhahdaa koorsadan iyo waxay tahay koorsada markaysa qaabkan aad aragto inay ku furan tahay kadib waxaad arkaysaa cashirkii koowaad oo koorsada ku saabsan kadibna waxaad arkaysaa dhammaan cashiradii oo koorsada ku saabsan oo waxaad arkaysaa oo halkaas oo wada dhammaystirin tusaale ahaan haddaan tusaale kuu soo qaato kaleeta hordhaca kaleeta faahfaahinta asaasiga cashirkan waa cashirkii mataqaana maaragtay oo hordhaca lagu tusaayo iyo waxaad koorsadan ku baranaysid iyo guud ahaan marka cashirka marka quiz uu leeyahay marmarka qaar ma tusaale ahaan take quiz oo kaleeta quiz markaad istijaabinaysa cashirka wixii su'aalihii inaad fahantid iyo in kale cashir walba wuxuu leeyahay inaad cashirkii fahantid in kale tusaale ahaan hadda koorsadan waxay ka kooban tahay muuqaalkii iyo waxaa la yidhahdaa mataqaana maaragtay muuqaal yaroo cashirka ku saabsan waay tusaale ahaan waxaad tiri okay 5 mawduuc next hadhaysa okay su-aasha labaad haddana lagu weydiinaya koorsadaani waxay soconaysaa 35 maalmood macnii inaad fahantiin in kale waxa mawduuca laga hadlayo okay kadibna next quiz hadhaysa si aad u hesho shahaadooyinka koorsooyinka waxaad u baahan tahay inaad keento maxaa waay macnihiisa 75% kadibna complete quiz hadhaysa waxaad arkaysaa natiijadaada iyo mataqaana maaragtay waxaa lagu leeyahay 100% passed inaad ku baasta kolata kusoo baxayso okay waxaan rabnaa marka inaa mataqaana maaragtay aan ku tuso halkaas waa quizkii cashirkii qaabkaasaa loo qaadanayaa halkaana waxaad arkaysaa mataqaana maaragtay dhammaan cashiradii oo mataqaana aad bay u tiro badan yihiin waa ujeedaa oo way badan yihiin marka mar walbana adigu mataqaana si degan buugaaga qalinkaaga howlahaaga saas u wadanaysaa koorsada markaan way ku furan tahay waa hadafka ujeedka hadalkayga okay koorsada markay dhammaato oo kaleeto gunaanadka oo kaleeto waxay leedahay mataqaana maaragtay gunaanadka koorsada maamulka ganacsiga caalamiga waa sharaxaad guud si cilmigii mar kale lagu gelin karo okay halkan waa dhamaysay halkan waxaa waaye shahaadada koorsadan kadibna imtixaankaad qaadanaysaa imtixaankaas oo ah imtixaanka shahaadada maamulka ganacsiga caalamiga oo kaleeto waxaan lagu siiyey sharaxaad waxay soconaysaa saacad iyo 30 daqiiqo waxaan laga rabaa 75% inaad keentid si aad shahaadada Soomaalism u qaadan karto kaleeto marka take quiz markaad tiraahdo kaleeto quizku ku bilaabanayo meeshaas maxaa kugu qoran saacad iyo bar inay soconayso imtixaanka shahaadada aad ku qaadanaysid su'aalooyinka waa kuwan mataqaana maaragtay waad ka jawaabaysaa kadib saasaa u soconaysaa mataqaana maaragtay ilaa aad ka keentid mataqaana maaragtay natiijada oo baahan tahay oo ku saabsan shahaadada marka su'aalooyinku way badan yihiin ilaa 50 su'aalood waayo waqti badan uma hayno marka sidaasaan kaga baxayaa waana qaabkaad iskaga diiwaan gelin karto koorsooyinka Somalism Academy waxaan jeclahay inaad si fiican u fahanti waad mahadsantahay